guursaday guurka iga tagtayna aysan kas ayadoo iga bixi iga tegin laakiin arrin family ay iga tagtay oo yani dee duco qaada ama habar qaado oo kale ahayd oo kale iga tagtay laakiin ma sheegi karo inay tiraahdo wiil baan isjecelnahay oo kale inay tiro ma garan karo laakiin waayo markii baan igu dambeysay lambarkeedu waa dasaya siduu u dansan yahay ayadii waxba iima sheegin ma jacaylkayga xaggeeda ku yaraa ma yani ma aad baan ugu weynayn qalbigeeda ma garan karo bas yani markaas waxaan xaqiiqsaday gabadha in ay ninka ay siisay aqoonba ama aysan horeyn isku aqoon ama aysan xiriirhooda ka dhaxayn ay ahayd arrin family oo gabadha ninka la siiyeyba oo ay yani meeshana isku barteen isla meeshana lagu siiyey dee arrinta mar haddii family tagtana dee waa wax iska fudud oo sida kale ka fudud ay arooskiina oo sida ku dhacay gabadhaasna aysan iga tegin ra'yiga iyadu leedahay ay iga tagtay macnaha ra'yi family ama family yani ducaqaada ah iga tagtay ninkaasi ku guursatay si fiican waxaan marka waa soo gabagabaynaynaa saaxiib gacli su'aalo yar ku weydiinaya niyow fiiri marka maadaama ay noloshaadii oo dhan saas ku soo ahayd oo meeshaas ugu dambeysay gabadhi ma raadis marna waxaa dhacday may horta waxaa dhacday gabadhaan markiiba igu dambeysay markaan xaqiiqsaday in yani la guursaday waxaan siri yaa qof la guursadayna dee waxaan siri adu calafkaaga si qaas ka qaado ninkale calafkiisa noqotay sidaas sidii baan dabcan isku iloosiyey anoo wallahi aad uga marweysan reerteedaan iska dhexgalay badanigaygaan iska sii bilaabay meelaygaan iska sii yani sidaan isku iloosin kara waan isku iloosiyey lambarkeeda waan iska dhiliday aduu muddo markaan saa ugu jirayna waxaa dhacdayba inaan yani aan sidiiba qalbigayga niyadii weli kama bixin ilaa hadda ku jirtaa waayo qofkii ugu horreeyay aan jeclaaday waa qofkii aan ugu horreeyo anoonan yani jecel wuxuu yahayba aqoon aan haasaabo la bilaabo oona jeclaadaba ahaa haddana waxaan ku waayey si kaloo yaro fudud ba haddana ku waayey marka markiiba igu dambeysay oan iska daayay faraha ka qaaday aan mana sheegi karo hadda inay nooshahay inay dhimatay markiiba igu dambeysay si fiican saaxiib gacli su'aal kale ku raaciyo waxaa noo sheegtaa marka waqtigaas inta sano ay ahayd xiriirkaas intuu dhex socday waqti aad u badan ma ahayn wuxuu ahaa horto sanad ma gaarin laakiin adu waxaan filayaa 5 bilood adu 6 bilood inay meelahaas ahayd maan jeclahay ilaa 6 bilood ilaa 6 bilood ilaa taamina sanadkan 6 bilood iska ordaa laakiin 6 bilood 12 xoogaa cabaar jiitamaysay sanadka ma yaray saaxiib gacli mid kale ku weydiiyo gabadha magaceeda ma noo sheegi daa saaxiib gabadha magaceeda hodan buu ahaa hodan saaxiib mid kale ku weydiiyo ilaa haddeertaan 12 waa xilli hore ma ogtahay maxaad u ilaaway saaxiib صح maxaa ilaa haddeertaan gabadhi maxaadan u ilaawin sidii miyaa u jeceshahay mise qiso un oo noloshaada soo martay bay kugu noqota wallahi waxaan u ilaawin baa waxay tahay maalba dadku way sheekaystaan way iswaayaan intaas qof baa sanadkii bishii bilihiiba intaas qof baa yani intay sheekaystaan xiriir isla sameeyay iswaaya laakiin daanin qaabkan ku waayay iyo qaabkii yani ba waxay ilaa hadda waxay igu noqotaa يعني جعلك مرة داعتك يا هنا وجعل داعتنا مرة معقول معها إن دي دودي وين مرة بدي يعني وحصلنا سمرة يعني وقتك صومرتي حالة وقتك هاي حالة الوجري يعني مرة بجعلك يعني داعتها مرة نيد هذا كمان بحية مرة وحصلنا أظن إسرائيل لكن مرة بوالله يعني عش سيدني تاسو قفتنا قف هاي أن سعيد وشعلا بهاي أو حقيقة أن أفتكر بهاي المركز اللي قاس وقتي على مريء أن هذا وشعلا بهاي سيفي عن سعد متكل أكويديو صح ما دام أنت لا سو كلانتي ساعة برتا أنا قاعد على أهل لما أريتي دايركتور بروفيشنال أو فيلمان كان مؤلفين تا فيلمان تا ألفه
qiso fiican oo habaysan baa ka sameyn lahaa filinka sheekadaada saaxib si ahaataba oo kula kaftamaya haddana ilaa haddeertaan suurtagal ma tahay suurtagal ma tahay saaxib ilaa haddeertaan inaad single tahay amaba waa iskala bixiso laftirkaaga saaxib lamaano kala samaysta may ani hadda waxaan nahay single baan nahay oo maadaama haddana wixii intaa ka dambeeyay anu waxbarasha masaga galay oo waxbarashada iska sii watay ilaa heer jaamacadeed haddana jaamacad baan dhigtay oo saaxib عفوا عفوا عبد الرحمن صح إقرأ له صاحب يوسف علي وتلفنا يسوع يقصي محيته لا يهدرتان سنجل ميات هاي مس سواء واسكل بحسي صاحب weli single baan ahay oo weli isma kala bixin laakiin insha allah warjini aan iskala bixiyo waxbarashadii xasaas kaga mashquulay haddana jaamacad xasaan ku wadaaba marka insha allah arjini aan iskala bixiyo saaxib si fiican horta waa kaaga mahad celinayaa maadaama waqtiga qaaliga saaxib gacali waqti badan siisay waana sidoo kale sheekadaadana saaxib gacal inta kaliya kuma ekaan doonto lacalla waxaa dhici doonto inaan markale isku soo laabanaan adiga saaxiibaana isla joognaa markasta laakiin barnaamijkaana markale iskugu imaano saaxib waana kaaga mahad celinayaa 100% sheekadaadana saaxib aad iyo aad bay u qurux badnayd waana ka helay waxaana ii taabanaysay sidii wax hadirtaan dhacayo oo kale mar kale iyo mar saddexaad 100% waa maasan tahay saaxib waxaan ku leeyahay meeshii berbera ahayd baa joogtaa soo maaha ku nabadgal oo ku waaqow saaxib waxaa ku iraaday bedelkaas hore oo bedelmayna saaxib khayr ilaahay kugu bedelo waxaan ku iraaday sidoo kalena saaxib gacali nin adag baa taa wallahi go'aamadaadii oo noloshaada ka qaadatay iyo waxaa ku iraaday sidaa wax u maamuleysay iyo weli waxaa cadeynaysaa waxaas oo dhan ma aragtay shakhsiyadda caadiga qofka inaa qof adag ahayd saaxib oo nin fadhiya ahayd si ahaataba waa ku soo qabanayaa adiga ahaantaada waana kaaga mahad celinayaa 100% saaxib waana intaanan markaan dhameeyay barnaamijkaana SMS waa kuu soo dirayaa haddii ilaahay idmo waana mac salaama dhankay ka tahay saaxib aad baa maasanta saaxib waa isku leenahay taas in ka badan bas insha Allah khayr badan baa soo bilaa saaxib haye bra asalaam الرحمن شكريس أنا وان كهلي بقول وين يقنعسي شيكا وحنا هاي شيكا تابنا يس قلبي جينا هاي شيكا وحنا هاي شيكا حقيقية نقف كل شيء كسر دعاء سجن ولا شيء سهل شيكا وحنا هاي جعيل حقيقة أو سجن إنكيس حقيقة كهاي شيكا وحنا سؤال بدن لا وقف سؤال إسكو يدين كرا شيكا وحنا هاي نعيب بدن تابنا يس وحنا هاي شيكا أيضا أودم بالنوع كلا وموجود macnaha waxyaabo aan suurtagal ahayn baa la kulmay sida inay gabadhii waqtiga ay kulmayeen aysan is arag gabadhii waxyaabahaas oo dhan su'aalo la isku weydiinaya jira haddana saas ay tahay waqti uma sii hayo kolley si ahaataba barnaamijku waa qiso iyo sheeko mar kale waa WhatsApp call telephone numberkaana naga soo wici kartaa si ahaataba waan kaga mahad celinaynaa channelkan hadda subscribe saartid waa Sumar Royal Family waa aniga Anas Cabdiya wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh